صباح وناكسن أصحابتا قالقا والسلامي ومختار نور هالكا السلامية ساكا وسوك اللهني وحان أسسو عنا حيبتا يقوبو تاريخي نسوعنا إن شاء الله نقو سكودن وحان يذكر جينا إن شاء الله وشو وناكسن هالكا هو إيل تقمدا إيل وتقمدا هذا تاريخية حيالا هذا حسب بدن وهذا قرح بدن إيقا إذا لو ذاقنا إن شاء الله مركز صاحبيال. Don't forget to like, subscribe and share إن شاء الله مختار نور channel for more videos. مقالات عصب سهل صعطان subscribe قرية وفافية إن شاء الله like قرية comment قرية حقي أتعشين إنا دلحيس كتاكتان إن شاء الله أما حقيت أتعشين إنا أركتان ودقموين عصب إن شاء الله حقا comments كا هل يقصوا قروا هدورة بينو هذا ودي السلام يا صاحبي صباح نكسين في عن تعد عز ونور ما شاء الله حالة في عم بوسهت بالحس كذا وحكم الهردة معهم بالله هي ما شاء الله ما شاء الله حبيبي مختار مكنا حبيبتي وصلنا هذا وي وش هالصوت ثانك يو xilligan oo kale ugu macaan xilliyada xeebaha la tago waan xilliga ay mataqaana ay shaqa caafimaadka ay leedahay waxaan rabnaa inaan mataqaana si fiican halkaas energy iyo waxyaalo badan uga qaadano waa meesha halkaas iska dirsan baa leedahay biyaha toga iyo biyaha xeebta waana mataqaana ay sheek aad u kala duwan yihiin qaybna waa macaan qaybna waa kharaar marka ku soo dhawaada idin leenahay la daawada aan dalxiisaya waxaan wada oo la hogaaminaya Mr. Professor Mahmoud Dirius سأوجدان جوي وادقين هاي أروري وايد فرحت بيلي مصعب الحين فتين كيا كليا صوب حي وحاربنا إن سعدال كينا لهلنا فرحت صوب حي سوي أنه حيبت جونا طبعا سأوجدان حيبت هدرت أنا مارتي لبقى بودواية قابيرو لحن كنت لابسنا كنت محاول كنا حيبت وين مركا حارنا لا أكتن مقالكم كحون قبو والله قبو ده it's freezing. Look at this beautiful view gosh لا الله 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 بيغوهين والله برف ور حبيبي رجعة أيمن Yeah. هيا حاجة كتبت Place called Sweden. Sweden. You better know that place. Stockholm is Gothenburg. okay هيا أي الكورن it's nice. Yeah. What do you room alley? Yeah? Okay. Fortsätt. Ja. Okej. محاول حن يا وي هيك شيء منو اللي هاي حالة وين؟ ما سوق قطعي. سوق قطعي. ولا هو برتني
سيرة قبطية خوشة دوا هلك مرحبا بدع no حبسي عم باشا والله أنا هالس إيه هاي بافو قوة سكدي قباء لازم باشا أنا أجدان خيراتك كيف حبتها سيدا أجدان بنان كيسكي أنا قبان حتى وقت بدل اللي قريو مركا نحارم معناد نقلفها إذا ستان حلوه مكان خيرات كجرو مارت ميشان قراعي قضايا عشب بدأ سحب كجرا مارت هو حواس إلى ما مارت هو بعد مكان ملارك karkaariyo awdaliyo soonihii togdheer hargeysoo sabadadeheedii ku soore sugay sanaagiyo sool dhulkuugu sofku daaqi jiray halkiyo boosaaso beeleed weyne iyo bakool bu'aaliyo jawhariyo beelihii markood nugaliyo mudugiyo mahirinta gedo kismaayo baydhabo oo aan la beegsan karin bilicda galgaduudo dhulka baadka loogu simay oo beerihii xamaro raabigay barwaaqa dhigay bahduna isjeclaydo magaaceenu baahsanaa markay niyadaydu beegtan burjaynayaa baroortiyo ciilka dhiigaygu boodayaa ilaahow baaqisoo maalin nabad ku beer ilaahow baaqisoo maalin nabad ku beer go بافا ايه waxaan u furnay dhagaxda iyo laga gudbiyaa loogta laakiin markii la dhameeyo waa xirmaysa ما شاء الله ما شاء الله والله إني أبوركان amazing لكن أنا أقول حاجة فيه ماشي أقول لي صور كفيري برهانها ما شاء الله amazing أنا waxaan ahay dadkii dalkooda wax u bartay markii dambana dibadda oo takhasus u imi markii dambana dalkii dib ugu noqday dalkii markuu burburayna dibadihii ayaanu haddana dib ugu noqonnay marka maanta adduunkii haltuu noqday wuxuu noqday meel ciriiri ah oo dadku marka hadda ay maaragtay dib isku qabaan marka waxaanu garanay ama aanu rabnaa inaanu ku guubaabino dhalinteena yaryar oo dibadaha ku koray ama xerooyinka qaxootiga ku dhashay ama dibadaha ku dhashay meel kastaba cirifyada adduunka ha joogaan inay dalkoodii dib ugu noqdaan inay arkaan inay dal leeyihiin meel ay leeyihiin dhalinta badankood ma oga inay dal leeyihiin yacni xeebtaan oo kale inay leeyihiin ma oga dalkan quruxda badan leh inay leeyihiin marka anigu waxaan ka tirsanahay bahda Scansom oo Maxamuud iyo ay ka tirsan yihiin marka waxaanu ku wareegnay badanaa Soomaaliya oo idil marka meesha aanu dooranay waxa weeye waa halkan weeye waa meel aad u degan aad u qurux badan marka muddo badan ayaan ku soo noqonaya halkan hanti badanna aan geliyay laakiin waxay noqon doontaa adigu meel ay ku soo hirtaan qorayaasha Soomaalida oo idil
oo ay intay yimaadaan wax ku qoraan. haddaad aragteen dhinaca waxaa ka xiga baddi, dhinacan waxaa ka xiga buuro qurux badan, dhinacan waxaa ka xiga tog biyaa, inta waxaa ka xiga tog kala dhinacan ka ah. marka fadlan waxaan idinku guubaabinayaa meel kasta aad dunida ka joogtaan, haddii aad damacdaan ama eel timaadaan, qof kasta oo yimaada waa inuu halkan welcome ku yahay. yacni aad seexan kartaa oo bustahagaad dhigan kartaa. hoggaas weyn baan iniin sameeyey, yacni aanan ciriiri ahayn. open airkaas aad habeenkii arkaysid, xidigaha aad arkaysid, oo aad ku toosaysid dhawaaqa badda, moogtahay hirka aad ku toosaysid. dhinaca kalena aad ka maqlaysid adamkii magaalada oo 10 saac xalay adamkii baan toosiyay Soomaaliya. marka dadkan waa dad badmaaxiina, waa dad ku nool wax soo saarka badda ku nool yihiin. waxa cagaarka aad arkaysaan waa beero weeye, khudaarta magaaladu halkaas ka soo baxdaa. haddii dadku ay isqabtaanna dad xabada isu qaata ma aha, waa dad saa u fariisto oo u tashada. halka fiiri nimankaas oo kale mawjooda halkaas waxay ku dhamaystaan, waa dal nabadeed iyo dad nabadeed. markaad hantidaadu ha noqoto hanti aqooneed, laakiin hantidaadu hadday tahay daar iyo baabuur iyo dhaldhalaal iyo taa hanti looma yaqaan. waa hanti hal maalin lagaa qaadi karo. dalkayaga maalintuu burburay, raggii milyaneerada ahaa maalin bay waxay soo istaagaan khayr. laakiin adigu markaad wax baratid, waxa weeye aqoontaada ninna kaa xoogi kari mayo. waa aqoontaadu waad la carari, qofna kaama xoogi karo. waa wax adiga kugu eg weeye oo qofna uu kaa qaadi karin. marka fadlakum markaad wax barataan dibadahaas ka faa'iidaysta, wax ku barta, iskuul jaamacadaha gala dalkiina. laakiin waa inaad u soo noqotaan oo saad wixii aad barateen aad ugu deeqdaan ummadda. dhalinyarada waxaan rabaa inaan u sheego inteena 13 qof aan nahay socdaal ku timid ee dalxiis u timid, inta fadhiisan ismaana weydiinin ciddaan nahay meeshaan ka nimid. kaliya waxaan u socon dhalinyaro Soomaaliyeed rabta inay dalxiista. waxaan ka soo degnay Garowe, waxaan soo maray dhul badan aan soo marnay, tuulooyin aan soo marnay, magaalooyin kale aan soo marnay. weli ma aysan dhicin intana la joojina lama weydiinin intay u socotaan, halkay ku timaadeen. dadka Soomaaliyeed waxaa moodaa hadal waxaa jira maalmahan aan ku soo celcelinaa, aad ugu soo celcelinaa. dadka Soomaaliyeed waa loo kala waramay. marka waxaan rabnaa dadku inay isu yimaadaan, isu waramaan, iswaraystaan. dalxiiskeenan waxa uu astaan u ah dadku inay isdhexgalaan oo isu guushaan oo isbooqdaan oo maaragtay dhaqankii Soomaaliga saxda ahaa inaan dib u soo celino. nagala socdo maaragtay intaan socdaalka dalxiis ku jirnaa. Soomaaliga iyaguna waxa weeye ha ku deeqo dalkaaga. ha ku deeqo dalkaaga. ha ku deeqo dalkaaga. معان ومدان هوي لقى ورني
سجلنا السكندري يا هذا سجلنا سأجدان صفي ها مقع أباها محور جنرال خالد ما شاء الله ما شاء الله مركا سكول كانوا ساعة لسيسوما دوري wuxuu dhisay toddobaadkii waxaan malaya dhowr 80 labadii ما شاء الله ما شاء الله هذا ولا ضيعت عليك hadda waa la dayactiraa سؤال كنا مركا aad baan ugu faraxsanahay inaan joogno iskuulka ay ku baranayeen ardayda degan deegaanka maanta farxad ay noo tahay inaan maanta oo maano aan aragno waxa ay ismaha quruxda badan iyo meesha ku baranayaan aad baan ugu faraxsanahay مشكلة حبي بتري بالك تغش تيجي هذا ضبك يا كبعي كسلو أيل سكندري مختار نور iyo waftigaad hogaaminaysid halkan waa ayl secondary weeye waa iskool waxaa dhigtaa arday badan oo isugu jira form 1 form 2 form 4 amalaya dafcado badan baa ka soo qalin jabiyay hadda waxay ku jiraan sano dugsiyeedka 2017 2018 iskoolka waxaa dib loo aasaasay oo dib loo soo celiyay 2010kii sanadka ugu dambeysay ardayda amaanka ay qaadibsay 13 arday baa waxay keentay sanadka waxay rajeenayaan inay ka bataan marka meeshu ku yaalo iyo meesha deegaanka ku hay waa la saas ka xorta tamaa magaalada weyn caasimadaha ama laami ku tirsan beertooda la taxay marka taasna waxaa sababay haystaan macallimiin quality leh iyo maamul quality leh iyo dadka shacabka u helan inay halkan ay ka soo baxaan arday tayo leh oo Soomaaliya wax ka bedelo ay waa meel taariikhi ah dadka ka soo baxayna waxa weeyaan dad document soo cad leh waaye secondary iyo shaqo soo abtuqul waa loo soo tusaale hadda xageena class kamida class aad u qiimo badan maanta waxaan joogo muxtaar nuur waa kuliya caalamiya oo photographer wax badan bilicda ma taqaana oo dalka Soomaaliyeed soo bandhigay meelo badan oo ka soo shaqeeyay meelo badan adduunka ma taqaana oo tagay sida la ii sheegay magacaygu waa yaasir maxamed baafo waxaan nahay dhalinyaro Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inay kusoo dhacdo mid dibadda ka yimaadeen maanta anaga waddankana ku dhalanay ku kornay xiise iyo jacayl aan u qabnaan maaragta u soo safarnay qaarkeed muqdisho ka yimaadeen garowga intay kasoo baxay maaragtay inaan idinla qaadano quruxda ay iyo magaalada taariikhiga aad ku nooshihiin waxaan rabaa inaan dalxiiska qeyb idinka dhigo dalxiis ma maqasheen ya ma maqasheen ereyga dalxiis dalxiiskan waxa ka aaminsanay in waddan kale ama meel kale in loo soo qoto macnaha qurxiisa iyo isoo soo fikiyo maasha dalxiiska waa qurux waa nabad waa dhaqan waa deegaan waa waxa ilaahayna siiyey ee aragteen maalin kasta dhihin ku dhaca buurahan iyo maaragtay xeebaha aragteen kalluunka khayraadka ku jira badda يعني دوركينا قادتين يعني كدهان waxaan aaminsanahay awoodo badan baa idinku jira magaaladan idinkeena sugaysa idinka ku qortay waa maxay tihiin mustaqbalkii magaalada iyo maxaa ku dhaca dhammaan Soomaaliya marka waxaan aad iyo aad ugu haweenahay sababta waxaan u timaadeen waxa cilmi raadis cilmigaas ku dabaqaysiin inaad bulshadeena ugu adeegtiin kun ahaantii waxa lagu faxo waxaan doonayaa dhammaantiin in naftiina saxbisiin because waxaad qabanaysiin waa wanaagsan naftiina saxbiya waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno
cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akuwaaro wadankeena guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akuwaaro wadankeena waa wadnihii jirhkeenna waraabinayay dhiigo aan ku arkeena wadankeena waa wadnihii jirhkeenna waraabinayay dhiigo aan ku arkeena waxaan joognaa sartii sayidka taariikhiga ahayd cad iftax bal nala wadaag maaragta halkan waxa weeye waa daarta sayidkaas maxaa cabdalla xasan oo qalcadda uu dhisay muddo qarni iyo mataqaana waxay ka badan sanado dheer mataqaana bay dhisan tahay dhowr qarni iyo dhowr 10 sano bay dhisan tahay haddeer waxaa kadib ku shaqayn jiray talyaaniga uga dambeeyey waxaa kaleeto waxa way ka dambeeyey ku shaqayn jiray dowladdii daakhiliyada iyo tii shicibka ahayd tii militariga mataqaana waxay ku shaqayn jirtay dhammaantood waxyaal dukumiintiyada ay ku wada shaqayn jireen oo hadday mataqaana tahay teebabkii waagaa la garaaci jiray hadday tahay waxa warqadii waayadaa la qoray hadday tahay heshiisya la galay mataqaana waqtiyadaas iyo waqtiyo ku dhow hadday tahay dad mataqaana meheradooda ismehersaday hadday tahay kuwa dambiya lagu soo qabtay hadday tahay kuwa dhalashooyin iyo sugnaano wax noocaasa hadda kan oo kaleeto waa tees sarihii mataqaana waxa weye dowladdii soomaaliyeed qofka la siin jiray waxaa ku qoran qofka magaciisa aabihiis magaciisa awoowihiis hooyadiis meeshuu ku dhashay sanadkii mataqaana wuxuu dhashay 1939 la qoraa ujeedaan warqad waxaan ka dhaxalay meesha ay ku qoran tahay 1939 weli laakiin waxaa moodaa in warqad la xafiday waa fiisa dalku gala ayaa ku qoran طبعا واجهني qofkaas qaybta hadda aan soo galnayna waxa waa qaybtii xabsiga ahayd ama dadka marka dambiga laga qoro lagu hayn jiray inta xabsiga loo gudbinayo aftax soo gal meeshan saa weli ujeedaan waxaa yaalo salligii dadka marka xabsiga ku jiray ku fadhiisan jireen darbiyada saa ujeedaan waxaa ku qoran weli meeshan waa meel gudahaasi ah waayo dadka maaragtay lagu soo xiri jiray sidaa ujeedaan meeshan dadka maxaabiista dhagaxaan waxay ku qori jireen meeshan busur 21 bishii afraad 89 daanax waa dhintay hadda nimankan waan garanayaa ninkan busur waa la daanax isagana waxa weeye dadkan dad magacyadooda marka waa ujeedaan meeshan mar taariikhda ay leedahay waxaan arkaa ninkaas laabtay loo bisha 8 taal soo xiray dhawaada mar labaad waan ku faraxsanahay booqashadiina aad noogu timaadeen meel foga timaadeen dalkiina iyo dadkiina aad baranaysaan waxaan u malaynayaa hawshatan dalxiiska markay bilaamaysay mukhtaar iyo ragga bilaabay tigi iyo runtii iyadoo aan la aqoon magaaladeed ragga soo caansaaray waxaa ka mid ahaa tigi iyo mukhtaar iyo tiimkoodii dad badan oo aan aqoon magaalada kusoo xirmay idinkana waxaan rajaynayaa shacab badan ay kusoo xirmayaan magaalada insha allahu waxaan idin rajaynaynaa insha allahu safar khayr iyo nabadgelyo ku laabtaanin aad baan idinka mahadcelinaynaa booqashadaad soo booqateen ka maamulahaan annagana waa nagu jirtaa qorshaha noocaas inay meeshta noqoto goob caan ah oo xagga dalxiiska iyo dhinac walba maartay ku caan ah marka khayr baanu idin rajaynaynaa kuna soo dhawaada magaaladiinii degmadiina baa timaadeen dalkiinii baa u timaadeen runtii aad baan ugu faraxsannahay muddadii koobnayd aad joogteenna waxaad dareemaysaan kule wajiyadeen hadda ka muuqda
inaad sii jeceshiin inaad meesha aad sii joogtaan laakiin de waqtiga iyo duruufta baan masaabahayn laakiin waxaanu jeclaan lahayn waqtiga oo inta ka badan idinkoo usoo diyaar garoobay inaad muddo ama dhowr casho ama ugu yaraan usbuuc oo kale inaad nala joogtaan bay ku fiicnaan lahayd waxaan rajaynaynaa insha Allah inaad noo soo noqotaan idinkoo waqti fiican haysta annaguna ka maamul ahaan markaas iyo shacab ahaan reer Aylba aanu idinkula shaqayno muddadaas aad joogtaan oo chance badan aynu iska helno oo war badan aynu isniraahno oo macluumaad badan aynu kala qaadano oo taariikh badan oo hadda xogaayna ka qarsoon aad si dhawaad u heli doontaan aad aad mahadsantihiin